بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. maanta ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxaan la kulannay hay'adaha samafalka ee dowladda Imaaraadka Carabta iyadoo laga jawaabayo dalabkii ra-iisul wasaaraha in shacabka Soomaaliyeed loo gurmado. Hay'adahaas waxaan uga mahadcelinay gargaarkii hore ay waddanka ay uga geysteen iyadoo aad looga dooday abaarta waddanka ku habsatay iyo gobollada ay ku habsatay iyo baahida ka jirta. waxaan ku heshiinay in ay gargaar degdeg ah ummadda Soomaaliyeed la soo gaaraan marka ugu horeysa oo xagga biyaha iyo cuntada iyo caafimaadka ayagoo la shaqeyn doona guddiga abaaraha ra-iisul wasaaraha uu dhisay iyo hay'adaha ay qusayso. iyo waxaan kaloo ku heshiinay in mustaqbalka abaartan soo noqotay sida looga hortagi lahaa mashaariic horumarineed oo dhinaca biyaha iyo beeraha inay nagala shaqeeyaan. shirkaas oo muddo qaatay wuxuu ku soo dhamaaday guul. waxaan rajaynaynaa dadka abaaraha ay saameeyeen mar dhow in dowladda Imaaraadka ay soo gaarsiin doonto gargaar degdeg ah